wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ku qabatay kulan lagu dhiirigelinayay bulshada ku dhaqan deegaanada Hirshabelle kulankaasi oo ahaa maalinta qaaxada adduunka iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiiro xildhibaano ururka haweenka ugu horeen waxa kelmado ka dhiibtay bulshadii ka soo qayb gashay halkaasi iyo mas'uuliyiintii ka soconaysay iyo xildhibaano barnaamijkan waxa loogu talagalay in la qabto 24 Maars saad ogtiinba maalinta qaaxada adduunka ay u asteeyeen waa 24 Maars yani farsamo iyo culeysyo kale jira awgood oo hadda su'aalo badan la iga weydiiyay waa kamid ah waxyaalaha dib u dhaca lagu keenay maalintan aan isku baraarujinayno maalinta aan u bixinay maalintii qaaxada adduunka qaaxada waa cudur soo jireen ah ilaa iyo waxa la helay jeermiga qaaxada waxa keena bacteria loo yaqaan Mycobacterium tuberculosis 1882 ayaa waxa helay nin la yiraahdo Robert Koch hadii la yiraahdo caafimaad ahaan marka la yiraahdo iyadoo lagu sii dirin waxbarashada waayo sababtoo ah bulshadeena waxay la daalaa dhacaysaa caafimaad daro maanta waxaan soo nimid munaasabada cudurkan TB-da ah laakiin waxaan filayaa in cudurro badan oo qarsoon ay jiraan hadii aan lahayd mental hadii aan lahayd physical waa naloo sheegay munaasabadan ujeedkeedii waa naloo sheegay bacteria inay keento waa naloo sheegay waa naloo sharaxay maalintuna hadee waa maalintii loo asteeyay waa maalintaas ay TD2 waqti soo baxday maalintii loo asteeyay ilaa maanta maxaa tadawur ah horumar maxaa la gaaray caalamku muxuu ka sameeyay dadka waxaan ku howlan horta cudurka oo tibishada waxa keento qaajo dadka jiinka joogo uma badna tibisha ma badna waxay cunaan cambuula baalay waxay cunaan biubi cabaan maxay leedahay anigu hal xabo canjeer la sii tibisha kama dheer horta cudurka TB-da sidiisa wuxuu ka dhashaa sida la sheegay Mycobacterium tuberculosis bacteria loo yaqaan isla mar ahaantaasna waa cudur lagu qaado inhalation-ka ama waxyaabaha loo yaqaan neefsashada sidaas darteed waxa meeshan uga hadlayaa aniga ka fartuun ahaan qaabka loo yareyn lahaa cudurka maadaama uu yahay cudur jiro wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabelle iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa iyagana dhankooda waxa ay ka dhiibteen kelmadihii ku aadanaa arinkaasi bulshadu halis ugu jirto inay ku faafaan cudurrada halista ay ka mid yihiin TB-da waxayna ku faafi kartaa sidoo dhakhtarku sheegay in dadku ay qofka cudurka qaba uu qarsado iyadoo loo weyn haduu cudurku ku dhaco waxa fiican sidoo dhakhtarku sheegay aan ku adkeynaya wali bulshadeena gaarsiinaya inay aad iyo aad qofka xanuunka qaba uu walaal la noqdo dadka caafimaadka si u daweeyaan laakiin waxaan ku darayaa intaas bulshadan ku nool Hirshabelle oo ka kooban labada gobol waxaa jir wax badan ay u nugul yihiin hadii lagu yiraahdo qaaxo ama TB ama TV show ama off waxay la mid tahay macnaheedu hadii lagu yiraahdo waa gaajo midda kale waa iskaasiina leeyahay waa ka duwan gaajada iyo waxa saaran inay arag karaan dadka waxa saaran dawladda waxa saaran wasaaradda qaarkood halka fadhiya ninka odaga meesha hadda ka hadlaya wuxuu ka hadlay waxbarashada iyo caafimaadka isku xiran yihiin ugu dambeyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdi Macalin iyo ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi munaasabada tan caalamiga ah oo 24 Maarch maalinta cudurka TB-da sida dad badan oo xigmad badan sheegay oo suldaanku uu ka mid yahay wasiirada iyo ururada bulshada iyo taqaatiirta ayagoo aqoonta u leh waa cudurrada
gaajada laga qaado waa runtiis gobolka kan aan joogno ama labadan gobol oo Hirshabeelle state la isku dhaho waxay ku jiraan gobolada ilaahay uu ku manaystay barwaaqada uu ku manaystay oo wabiyada iyo roobabkuba ay ku badan yihiin iyo xooluhuba ay ku badan yihiin maalinta lagu talagalay adduunka inuu xusuusto 24 March maalinta lagu talagalay inuu xusuusto cudurka la yiraahdo qaaxada maanta maalin farxadeed ma aha laakiin waxa weeye in baraarujin la isku sameeyo saas maartay arrintu ku salaysan tahay cudurkan waa cudur halis ah waa cudur adduunyada oo dhan taga meel ka maqan yahay jirin si kastaba ha ku yimaado waana cudur la kala qaado weeye cudurada faafa way badan yihiin maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa telefishinka caalamiga SBS magaalada Jowhar